بقربهم السعادة والنجاة يا باحثا عن خير صحب في الحياة صحب بقربهم السعادة والنجاة daawo waxaan ku soo qaadanaa barnaamijkan qisooyin dhab ah oo dhacay oo xaqiiqo ah صحب بقربهم السعادة والنجاة amaanada inuu kugu bedelo wax ka khayr badan درب المعالي دربهم لم يسلكوا دربا سواه qisadan daawo waxay tilmaamaysaa adigu aabbahaasaad ula dhaqanto sidaad hooyada ula dhaqanto ayuuma caruurtaaduna marka weynaadaan ay kuula dhaqmayaan دربهم لم يسلكوا دربا سواه فدربهم درب الدعاء درب المعالي دربهم لم يسلكوا دربا سواه فدربهم درب الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم daawada ku soo dhawo barnaamijkeena qisooyinka nolosha oo aynu ku soo qaadano qisooyin dhacay oo dhab ah oo xaqiiqo ah qisadeena maanta waxay ku saabsan tahay gabadh ayaa waxaa dhacday zawjo oo la qabay ayaa caruurteedii oo guriga jooga ayay ka dalbatay inay wax akhristaan oo casharkii darsigii ay akhristaan waxa ku jira caruurtan la rabo darsiga in akhristaan qof ina yaro ciyaal ah oo da'diisu aad u yar tahay oo markaa uu isagu dhigtaa qaybta barbaarinta caruurta dhigtaa markaa isagana si ay u mashquuliso oo ay uga mashquulso caruurtan kale si aanu waqtiga uga qaadin ayaa inta u dhiibtay buug ay u dhiibtay ayay ku tiri adiguna wax qor kadib waxay tiri anigu waxaan rabaa inaan awoobo oo runtii isagu markaa degan guriga qol ka baxsanoo dibadda isagu degan ayay tiri waxaan rabaa awoobo intaan u tago awoobo waxa weeyaan ninkeeda aabbaheed ayaa markaa ay tiri ninkii awoobo ayaan rabaa inaan runtii u soo shaqeeyo oo muxuu ahaan u adeego oo hawshiisa aan u soo qabtee intaa idinkuna wax sii akhrista caruurtii yareedii kaga tagtay markaasay wax u akhristaan kiyana waxay ka tagtay ay dhashay isagu da'diisu yareed isagoo buug feeganaya ka tagtay islaantii way baxday qol kale oo markaa ka baxsan intan guriga oo isagu qayb kale ku yaala ayay tagtay odaygii markaa dhalay ninka guriga iskale ayay u soo adeegtay way soo noqotay markay soo noqotayba waxa dhacay caruurteedii bay ku soo noqotay kadibna kii yaraa ay dhashay ee barbaarinta caruurta dhiganayay ayay aragtay aad u foorara oo qoraal sameeyey oo wax sawiruu sameeyey markaa qoraal sawir ah ayuu sameeyey kii yaraaba ku tiri hooyo maxaad sawiraysaa wuxuu hooyo waxaan sawirayaa markaan weynaado guriga aan mustaqbalka galaayo ayaan sawirayaa markaase waxay ku tiri hooyo bal tus sidaad u sawirtay markaasuu soo saaray markaasuu ku yidhi markaasa iyadiiba markaa su-aal weydiinayso waxaa ku tiri hooyo kani muxuu yahay siro hooyo qolkani waa qolkii hurdada haye oo qolkana muxuu yahay suu ugu jawaabaa hooyo qolkana waa madbaqii wax lagu karinaayay markaase haddana sii weydiisa hooyo kana muxuu yahay markaasuu yidhahdaa hooyo kana qolkii waxa weeyaan haynuugu talagalnay martida weeyaan intaa marka weydiisay ayaa waxay aragtay sawirka waxay ka dhex aragtay wax yaro qol u eeg oo meel fog ku yaala oo gurigaba ka baxsan markaasay tiri hooyo kaa aad gaarka u dhigtay ee meesha fog aad ku qortay muxuu yahay markaasuu yidhi hooyo qolkaa gaarka aan ka dhigay ee gurigaba aan ka dhex saray waxa weeyaan hooyo waa qolkaagii waxaa raba marka aad weynaato adii aabbaba qolka inaad gashaan islaanta aad ba u naxday islaantu way naxdo waxay sawiratay iyadoo qol gaara la dejiyey oo ka baxsan qolalka kale iyo ciyaalkeedu ay degan yihiin la dejiyey bay sawiratay iyadoo keligeeday sawiratay iyadoo cid la sheekaysatay aani jirin oo caruurteedii ka dhex baxday ayay sawiratay waxay sawiratay iyadoo la kulantay maanta odaygan ninkeeda aabbaa waa qolkuu degan yahay oo kale iyadoo gashabay sawiratay qolkan la dejiyey iyada runtii ninkan qaba aabbaheed qolkan la dejiyey waa qol guriga ka baxsan waa qol gaara waa keligii cid lama sheekaysto isagu ma isla hadlaaya sawirkii gabadha ku soo dhacay islaantu waxay noqotay ma laga yaabaa adiguna mustaqbalka
in waa kan kaaga yara kuu sheegaya in qolkaasoo kale lagu dejiyo oo keli aad noqoto isla markiiba iyadoo naxsan ayaa amar waxa ku bixisay shaqaalihii jaariyadii guriga dadka ka shaqaynayay inay tagaan qolka uu degan yahay awoow waa ninkeeda aabaheeda inay qolka intay tagaan gebi ahaanba ay soo raraan oo intay soo raraan ay dhex keenaan odayga qolalkan isku dhow ee ciyaalku ay degan yihiin weliba qolka martida inay keenaan ee dhexda ku jiraan ayay go'aansatay shaqaalihii baa orday odaygii baa la soo raray sariirtiisii baa la soo qaaday wixii oo dhan baa la soo qaaday qolkii guriga ku dhex yaalay ee martida loogu talagalay ay odaygii la soo dejiyey martidiina waxa la geeyey qolkii fogaa baa la geeyey arrintaa islaantu markay samaysay ayuu ninkii soo noqday guriga lahaa ninkii guriga markuu ku soo noqday ayuu isbeddelkan arkay wuxuu arkay qolkii odaygii oo laga soo raray qolkiisii shiishe oo qol bartankaa la keenay markaasuu wuxuu arkay islaantii ooyeysa markuu yidhi maxaa dhacay sa waxay ugu jawaabtay waxaan go'aansaday aniga iyadagu qolka mustaqbalka lina dejinaya inuu noqdo qolkan aanu noqon qolkaa fog ee odayga aynu dejinay qisadii buu fahmay markaa wuxuu fahmay haddii adigu aabbaha aad dejiso qol fog oo carruurta ka baxsan ogow adigana carruurtaadu waxay ku dejinayaan qol fog oo carruurta ka baxsan halkiiba odaygii ugu mahadnaqay xaaskiisii odaygii la soo rarayna uu aad ugu farxay in carruurtii la dhex keenay dawada qisadan maxay daaranta qisadan daawo waxay tilmaamaysaa adigu aabbaha saad ula dhaqanto sidaad hooyada ula dhaqanto ayuuma carruurtaaduna marka weynaadaan ay kuula dhaqmayaan haddaad maanta si fiican ula dhaqanto carruurtaada wanaag badan aabbaha ula dhaqanto hooyada haddaad si fiican ula dhaqanto si wanaagsan oo baariya haddaad u noqoto waalidkaaga maanta adiguna carruurtaada beritoole sidaas laag bay kula dhaqmayaan laakiinse maanta haddaad waalidkaa ku gabadfasho haddaad qol gaara dejiso keliga oo cidna aan la sheekaysan karin adna waxaad ogaataa beritoole carruurtaadu qolkaa gaarka ah ee cidna aanad la sheekaysan karin ee keliga ah ayaa lagu dejinayaa marka maanta shaqayso waalidkaaga si fiican ula dhaqan si beritoolena carruurtaadu si fiican kuula shaqayso wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu بل سبحوه واشكروا سترون أرزقا ترى مثل السماء إذ تمطروا عند اللقاء تصافحوا